ducada culimada qaarkood ay u bixiyeen ducada ugu culays badan oo xambaarsan diinta islaamka oo dhan. ducadaasi waxa waaye duco qof walba laba sadar kaliya ah oo qof walba xifdin kara ama hal sadar. ducadaasi nabiga calayhi salaam wuxuu yiri: man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. qofkii dhaha laa ilaaha ila allah, laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jiro ila allah ilaahay mooye, waxdahu laa shariika lah keligiisa waa ilaahay subxaana wa tacala, wax lala wadaajiyo ma jiro, lahu lmulku wax walba oo jira oo makhluuqa isagaa leh, walahu alxamdu mahad oo dhan inaan ku mahdino isaga keligay khaas u tahay, wa huwa calaa kulli shayin qadiir, wax walba ilaahay subxaana wa tacaala wuu karaa inuu sameeyo oo waxay ku xirantahay ilahay inuu dhaho kun fayakuun, wuuna ahaanaya. ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu yihi ducadaasi qofkii akriya 100 jeer subaxdii, salaada subax markaa soo dukato 100 jeer qofkii akriya ducadaasi wuxuu helayaa 5 faa'iido. 5taas faa'iidaan rabnaa dadkao dhan inaan gaarsiino maanta, aan xusuusino, laakiin waa 100 jeer waaye. waxaad u baahan tahay oo keliya 7 daqiiqo iyo bar, waa la xisaabiye 7 daqiiqo iyo bar. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. 100 jeer haddaad akriso 5 faa'iidaad helaysaa. faa'iidada koowaad, ilaahay subxaana wa tacaala 100 xasanaad ayuu kuu qorayaa markaasi. halkii xasana waa ب10 amhaaliha, marka waa 1000 xasanaad. waa 2. 100 xumaan aad samayso ilaahay kaa tirtirayaa. 100 xumaan aad samaysay ayuu ilaahay kaa tirtirayaa ducadaas markaa akrisato. 3, ilaahay subxaana wa tacaala waxaad la mid tahay oo ilaahay uu ku siinayaa ajir qof 10 qoor xoreeyey. hadda ogow 10 qoor oo addoon ah qof xoreeyey ayaad la mid noqonaysaa. xadiis kalena wuxuu leeyahay qofkii 1 qoor oo addoon ah xoreeya, qofkaasi xubnihiisa xubin ayaa naarta loogu xoreynayaa. xubin ayaa naarta laga xoreynayaa, ilaa xadiisku uu dhaho xubintiisa khaaska ah waa laga xoreynayaa, dembiga ay samaysay waa laga tirtirayaa, naartana waa laga xoreynayaa xubinta khaaska uu xoreeyey darteeda. markaas halkaas waxaad ka fahmaysaa 10 qof oo la xoreeyey ajirkiisa markaad hesho in ilaahay subxaana wa tacala cadaabka uu kaa xoreeyey. 4, xadiisku wuxuu leeyahay maalintaasi oo dhan qofka ilaa maalinta ku xigto laga gaaraya subaxda ku xigto shaydaanka ayaa laga ilaalinayaa iyo wixii dhibaya oo dhan. waa midda 4. faa'iidada 5aad, qofkaasi qof ka khayr badan maalintaasi ma jiro ilaa qof sameeyey in ka badan inta asiga uu sameeyey. idan xadiisku wuxuu leeyahay qofkaasi oo 100 jeer akhriyey laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, qof ka khayr badan ma jiro ilaa qof sameeyey intuu